dhulka sanaag oo dhan waxa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba iyo tabasho galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto wadanka dhamaantiis maamul goboleedyada kale tan ay insha Allah caafimaad haysanin biyo haysanin marka deegaano kale oo la mid ah ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaagaa jiray iyo meeshuu maraya ka sii bilaabo waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda Soomaaliyeed It grew from 2011 to 2014. bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo qodobada ugu doorkaroon ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo daahfuray barnaamijka baxnaano ee lagu taakuleynayo qoysaska danyarta ah madaxweynaha galmudug oo daahfuray xarunta guddiga covid-19 ee galmudugga puntland oo amartay in tallaabo ciidan lagu joojiyo salaadaha jimcaha iyo jameecaadka isku socodka gaadiidka gobolada iyo degmooyinka puntland oo la mamnuucay akhbaaradka dibaddana waxaa ugu doorkaroon dowladda sacuudi arabiya oo ku dhawaaqday jiina iyo taraawiixda salaadaha kale ee jameecada bisha barakeysan ee ramadaan dalka Ecuador dadkii uu dilay coronavirus oo laamiyada daadsan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo intaasi kasii faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa daahfuray xarunta ay ku shaqeynayaan guddiga covid-19 ee galmudug iyo xarunta sheebaarka covid-19 ee dowlad goboleedka galmudugga xaruntan ayaa waxaa ku shaqeyn doona guddigii uu dhowaan magacaabay madaxweyne qorqoor ee kahortaga coronavirus furitaanka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya xukuumadda Puntland ayaa amartay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado masaajidda aan weli u hoggaansamin amarkii ka soo baxay dowladda ee lagu joojiyay salaadaha jimcaha iyo jameecaadka masaajidda si looga hortago xanuunka covid-19 qoraal xalay ka soo baxay guddi hoosaadka amniga Puntland ee tixraacaya go'aankii hore ee dowladda ayaa lagu amray dhammaan hay'adaha amniga Puntland inay dhaqan galiyaan amarkii lagu joojiyay salaadaha jimcaha iyo jameecaadka si looga feejignaado faafidda coronavirus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daahfuray barnaamijka baxnaano oo taakulan dhaqaale lagu siinayo qoysaska danyarta ah iyadoo oo wejigiisa koowaad ay ka faa'iideysanayaan 1.3 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa ku bogaadiyay xukuumadda Soomaaliya dadaalka ay ku bixisay xaqiijinta ballanqaadkii ku aadan dib u soo nooleynta adeegyada asaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo heerka nololeed iyo dakhliga dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa faray xukuumadda gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo hogaaminaysa barnaamijka baxnaano in si daahfuran oo hufnaan iyo cadaalad ay ku dheehan tahay loo fuliyo barnaamijka baxnaano barayna ku celcelino oo aan soo helno fursad xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yiraahdo covid-19 ama caabuqa coronavirus loo yaqaano oo runtii xadiday dadku inay isu yimaadaan oo markay isu yimaadaan sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamijkii ugu horeeyay oo dadka saboolka aan ku gaarino oo aan ku caawinino in aan inta akhbaaradka dibaddana waxaa ugu doorkaro tirada dhimashada la shaaciyay ayaa ahayd 403 balse kiisaska tirada dhimashada ee cusub ee hal gobol ayaa gaartay 10 qof dowladda ayaa sheegtay in 6,700 oo qof ay gobolka Gayes ku dhinteen labadii toddobaad ee ugu horeysay bishan aynu ku jirno ee April Gayes ayaa ah magaalada ugu weyn dalkaasi aad ayuuna u saameeyay xanuunkan covid-19 waxayna sheegeen maamulku oo awoodi kari waayay inuu hayo oo xakameeyo tirada dhimashada ee sare u kacday taasi oo sababtay in meedadka oo lagu duubay marooyin ay iska yaalaan guryaha qoysaskooda
muftiga guud ee dalka Sacuudi Arabia ayaa soo jeediyay in salaada taraawiixda iyo salaada ciida lagu tukado guryaha sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA. ku dhawaaqadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo toddobaad ah ay naga xigto bisha barakeysan ee Ramadaan. muftiga boqortooyada Sacuudiga Sheikh Abdulaziz Al Sheikh ayaa sheegay in jamaacadda salaada taraawiixda aanan masaajidda lagu tukan doonin sanadkan sababo la xiriira talaabooyinka ka hortagga faafidda coronavirus.